Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta aad dunida daafeeda ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan afgembigii dhacusoobe ee dalka Turkiga. Maanta oo ay bishu tahay 15 Julaay 2020, waxaa dalka Turkiga laga xusayaa sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii uu guuldareystay afgembiga in xukuumadda lagu soo afjaro. Haddaba waxaan eegi doonaa waxyaabihii maalinkaa dhacay. Burada yapacağım şey burada ölmektir. Habeenimo Jimcaha bisha Julaay ay tahay 15, 2016, waxay u muuqatay in xukunka laga tuuray mid ka mid ah dowladaha ugu awoodda badan Bariga Dhexe. Mar qura waxaa wadooyinka soo buuxdhaafiyay askar iyo dubaabado dagaal oo hub ku gaashaaman. Ciidamo ayaa xiray biriijyada Furaad iyo Suldaan Mehmet ee magaalada Istanbul si ay u yaraato dhaqdhaqaaqa shacabka iyo isku socodka gawaarida. Tillaabadaas isla markiiba waxa ay shaki gelisay gaadiidleyda iskaga kala goosha gudaha iyo daafaha magaalada. Diyaaradaha ciidanka cirka ay adeegsadaan ayaa joog hoose ku duulaya ama ku dul heehaabayay caasimadda Ankara. Waxaa muddo yar kooxdii inqilaabka samaysay albaabka u laabeen telefishinka qaranka waddankaasi Turkiga ee loo yaqaan TRT. Waxaa markiiba kooxa afgembiga samaysay badda ku soo rogeen oo ay ku amreen dadweynaha Turkiga ee Ankara. Dalka Turkiga waxa uu galay xaalad cusub iyo xukun militari oo u gacan galay kooxo yar oo ka tirsan ciidamada dalka Turkiga. Dayuuradaha sida qumaatiga u duula ayaa duqeeyay goob ka mid ah caasimadda Ankara. Wax yar kadib waxaa rasaas ka bilaabatay gudaha baarlamaanka iyo qaraxyo isdaba joog ah. Shacabka weynaha Turkiga waxa ay la jahawareereen xaaladda cusub ee dalka Turkiga galay. Muddo yar kadib, madaxweyne Erdogan ayaa wareysi siiyay telefishinka CNN laantiisa afka Turkiga. Madaxweynaha ayaa dadka kula dardaarmay in ay isdejiyaan iskuguna soo baxaan jidadka si ay u ilaashadaan xukuumadda ay ku soo doorteen sida xalaasha ah ee xorka ah. Madaxweynaha waxa uu shacabka u ballan qaaday in ay guuleysan doonaan iyo in uu si ba'an uga aarsan doono. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa sheegay in xukuumadda gacanta ku dhigtay xaaladii dalka guud ahaanba. Leaving the police to guard the abandoned tanks. But just a few hours earlier, those soldiers had been on the offensive. Here, they're lined up on the Asian end of the Bosphorus Bridge. Then they opened fire in the direction of people gathered at the opposite end. The crowd on the European side didn't move. Instead, they started singing the Turkish national